videogan waxaan kaga hadlaynaa ruleka aan ku isticmaali karno sifa aan usoo saarno functionka inuu increase garaynayo ama inuu decrease garaynayo annagoo isticmaalayna derivatives. Marka waxaa lagu dhahay suppose that functionka function f inuu continuous yahay, continuous function. Marka waxaa la rabaa marka koobaad inuu continuous function yahay on ab interval on any interval. Intervalka aad rabtid macnaha inaad functionka aad ku ogaatid inuu increase garaynayo ama inuu decrease garaynayo waxaa weeyaan marka hore inuu continuous yahay la rabaa intervalka. Kadibna conditionka labaadna uu yahay differentiable on ab uu differentiable ku yahay oo derivativekiisa la raadin karo macnaha within that interval. Marka labadaas haddii uu functionkaagu haysto f marka koobaad ay continuous ay tahay intervalkan gudihiis haddana ay differentiable tahay. Marka continuous waxaa la rabaa even intervalku waa inay ku jiraan. soo maaragtay waxaan isticmaalaynaa square bracket. Marka waxay ku tusaysaa xataa at this point a iyo point b waxaa la rabaa inay continuous noqdaan. laakiin differentiable markii la joogo intervalka endpointigu laazim maaha inay differentiable yihiin. waxa gudaha u dhaxeeya ayaa muhiima in differentiable inay yihiin. Marka haddii aan haysano this condition satisfied oo marka koobaad functionku continuous yahay haddana uu differentiable yahay, marka waxaa lagu dhahay derivativeka f ama f first derivativeka haddii uu ku siiyo greater than 0 at each point x oo ka mid ah intervalka. marka first derivativeka functionkaaga f haddii uu yahay markastoo aad gelisid any x oo u dhaxaysa ab hadday ku siiso greater than 0 marka waxaa weeyaan f-taadu waa is increasing on ab. marka first derivativeka markaad raadisid functionka kadibna haddii aad gelisid x kasta oo u dhaxaysa intervalkan a iyo b haddii ay ku siiso greater than 0 value oo ka weyn 0 marka f waxaa weeyaan waa increasing on ab. okay, haddiise f first derivativeka haddii markaad first derivativeka aad raadisid any or each point x markaad gelisid point x any point x oo ka kooban intervalkan ku jira markaad gelisid first derivativeka haddii ku siiso less than 0 value ka yar 0 marka functionka waxaa weeyaan waa decreasing on ab. functionkaas wuu decrease garaynaya. macnaha waxaa weeyaan first derivativeka markaad heshid haddii uu ku siiyo markaad x gelisid xna ay ka kooban tahay intervalkaas ay ku jirto hadday ku siiso less than 0 at each point x in this interval marka waxaa weeyaan f waxaa weeyaan waa decreasing on ab. marka example ayaan siinayaa aad ku fahantiin.